reer kulmiye dhammaan meel ay joogaanba dunida dacaladeeda iyo daafaheeda waxay sharaf weynayaa inaan halkan kaga bogaadiyo sanad guuradii 20aad ee xisbigoodu uu baarka ka jaray waxaan leeyahay hambalyo xisbiga kulmiye taariikhdiisii madaxweynaha iyo raggii halkan ka hadlayba si fiican bay uga hadleen waa xisbiga ugu nasiibka badan maanta xisbiyada Soomaaliland wuxuu ka mid yahay xisbiyada Afrikana kuwa maanta dhaafay cimrigoodu 20 qaaradda Afrika 5-6-7 xisbi baa wax 20 sano soo gaadhay jira waxa ugu qiimo badan xisbiyada Afrika xisbiga ANC oo 94kii talada la wareegay ilaa maantana 28 sano talada dalka gacanta ku hayay kulmiye waxaan rajaynayaa inuu halkaa ka sii socdo guulo waaweyn xaqiijiyo halkan waxaa lagaga warramay xisbiga kulmiye iyo wuxuu gaarka la yahay madaxweynuhuna waa ka warramay rag badanna way ka warrameen waxaan isleeyahay 7-8 qodob ayuu xisbiga kulmiye gooni la yahay oo kaga duwan yahay xisbiyada kale waa marka ugu horeysa xisbiga kulmiye waa xisbiga ugu ballaaran taageerayaal ahaan ee ay ku bahoobeen bulshada Soomaaliland beenaale markhaatigiisu fogeeyaa waa marlabaadka waa xisbiga keliya ee muddo 20 sano laba muddo xileed ku guuleystay doorashadii madaxtooyada dalka mar saddexaadka weeye waa xisbiga ay laba hogaamiye laba madaxweyne ka soo baxeen oo aan labadii gudoomiye ee isaga kala dambeeyay waa Siilaanyo iyo Muuse oo leh taariikh maanta dhaafsiisan oo tagtadii shalayna ay wax ku leeyihiin xisbiyada kale ragga hogaamiya waxay taariikhdooda ku kooban tahay timaadada maanta oo keliya taariikhdii tagtadii waxba kuma lahaay xisbiga kulmiye waa xisbi waay aragnimo badan leh waa xisbi qoor badan waa xisbiga ugu loolanka iyo damaca badan waa xisbiga ugu khilaafaadka badan haddana waa xisbiga ugu xariibsan inuu xalliyo khilaafaadka gudihiisa iyo loolanka dhexdiisa xisbiga kulmiye waa xisbiga mudakarnimo intuu ka qabo 80 cod kaga tagay taladal ee ay reer galbeedkii dimuqraadiyadda bilaabay la yaabeen wuxuu ku soo meel maray qarankani xilligii madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin dalka hogaaminayay ma ahayn qura dulqaadka madaxweyne Daahir Riyaale kaliya kuma soo meel marin wuxuu ku soo meel maray dulqaadka turaalaha xisbiga kulmiye hogaamiyaashiisii haldoorkiisii oo garanayay nabadda iyo colaadda oo khasaare yaqaanaha xisbiga kulmiye waa xisbiga kaliya muddada 20 sano afar shir weyne iyo 6 shir oo golo dhaxaa qabtay ma jiro xisbi la midii waxaan leeyahay kulmiye waa kaas kulmiye waxaan ka mid ahaa asaasayaashiisii waxaan oran karaa waxaan ahaa ninkii labaad ee Axmed Siilaanyo ku lamaanaa taariikhda been ka sheegi maayo waa taariikh Axmed Siilaanyo xilligu ka soo noqday cariga Ingiriiska ee uu dhintay madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal ilaahay oo naxariistee ayuu gurigiisa qadan noogu sameeyay aniga iyo ninka la yiraahdo Xasan Axmed Ducaale Xasan Macallin oo golaha wakiilada labadayduba aanu ka mid nahay wuxuu yidhi nimayo damac baan leeyahay dalkiina hoggaankiisi waa kan isbedelay hogaamiyihiina waa ka dhintay kulliba dimuqraadiyaddii baa la bilaabayaa waxaan idinka doonayaa ururadiina diiwaangelintoodii waa la xidhay xilligii Cigaal noolaa baa la xidhay laba urur oo yaryar ayaa rag iila yimaadeen inaynu isku darro oo mid ka mida magacooda aynu qaadano oo ka diiwaan gashan waa rag inoo doono
dee ilay nin hogaamiyo murashaxo wax doonaya jifidiisa kama maarmee nimankii xaafadii aynu ahayn dee raggi kala doona idinkuna ila shaqeeya labada arrimood buu noo soo jeeday inaan la shaqayno iyo inaan ragu doonno halkaana Saleebaan baa fadhiyo oo qoor weyn badan haysta xukuumadda udubna rag badan baa jooga aniguna cadaysimaanahay keligeena ragga uma tigi karo waxaan ku nina madaxweyne garbaadu leedahay wuxuu kala ku daray war xasanow adigana udub baan kugu waraystay maxamuudna nin mucaarado meelaha uun dee haatan wareegaya waxaan ku nina madaxweyne waa kula shaqaynaynaa gudoomiye axmed oo waa kula shaqaynaynaa laakiin talaanu ku siinaynaa war waxba wax toobal caaro la isugu keen daray haynagu kalifine midaynu leenahay oo magaciisa xulanno oo rag oo jabadaad ragga u oodo oo aan birina lagugu lib sheegan oo lagu odhan waa haraggayagii kaasaynu samaynaynaa siday u suuroobaysaa buu yidhi war waxaan annagaa walba samayno golahan wakiilada sharciyadda sameeya golahaasaanu geynaynaa mooshin in dib loo furo ururadii waa ka soo baxnay wuxuu waa aragti wanaagsane taa ku soo shaqeeya casarkii baanu kala tagnay halkaa waxaanu tagnay gargaar ninka la yidhaha cabdilqaadir jirde ismaaciil oo ah guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada oo madax noo ah baanu ka helay waxaanu nidhi warniyow dee dalku khilaaf siyaasi ah ka jiray madaxweynihina wuu dhintay waxaa loo baahan yahay political reconciliation dib u heshiisiin siyaasi ah si loo helo ururadii aynu wakhtiga lagu xidhay ee asadna diiday inay isdiiwaan geliso rag cusubina damac la iman karo aan furo arrintaa nagala shaqee wuxuu nagu yidhi waa kaa noole war anigu waxba ka garan maayo waxaana mashruucaana idinla wadi maayo hal shardi oo keliya maanta dalkaa ninun baan ku ogahay wax hogaamin karee ninka axmed siiraanya hadduu urur furanayo waan kala shaqaynayaa annaguna waanu ka qarinay waayo dee maanu doonayn warku suuqa inuu galo arrintii baanu subaxii keennay annagoo 15 mudana ah wuxuu akhriyey qayba wuu maqnaayo isagaa hogaaminayay warqaddii guddoomiyaha shirguddoonka golaha wakiiladu markuu kula shaqaynayo xeerarka qaar badan buu kaa boodsiin karaa qolada baarlamankana waanu sheegayaaye waa kaadh la isticmaalo markaan lagula doonayn in lagula shaqeeyo waxaa la odhanayaa garyaqaanku ha soo eego waxaa lagu odhanayaa xeerku wuxuu dhigayaa 48 saacadood markuu garyaqaanku ka soo jawaabo in la dhigo wuxuu odhanayaa dood la furo waa 3 dariiq saddexdaaba intuu naga boodsay buu waryaalo waa nimanka dalku dib u heshiisiin u baahan yahay inaynu isu soo jiidnee waxaani garyaqaan oo baahnay cod baan qaaday yaa ogol in ururadii 2 bilood lagu kordhiyo dhammaan waanu codayn halkaasaa kulmiye aanu ku samayn waxaan leeyahay xisbigaa kulmiye ee aan maalinta ahaa qoori fagaaray ku waroo sheegto kootaa maalmo adag oo badan baan meelo adag ka ciidamiyey guushana ninka keligii sheegtaa nin raga maaha guulaan keligay lahaana ma jiro laakiin meelo adag baan maalmo badan ka ciidamiyey ma garoocan mana xero kalena uma gudin ilaa maantana laygama maqal kulmiyaan ka baxay anugu kulmiyi baan ahay waan idiin sheegayaa waa dhab aniga iyo xisbiga khilaaf baana soo kala dhex galay aniguna waxbaan tawday waana cadhooday war aniguna ma dhaliin la'ayn xisbiguna ma dhaliin la'ayn anna wax geystay anna wax lay geysay waxaan leeyahay bini aadankuna wuu cadhoodaa maan rag waa mudacyo afkood raggu waa isqabtaa siyaasaddu qurux iyo qosol joogtaa ma leh ee waxay leedahay qaxar iyo qabyo joogtaa siyaasadda waa la isku qoonsadaa waa la isqabtaa waa la isqalacaa meesha qoodhu ku badantay intaasba waa xeerarkeeda laakiin waa laga wada xaalaa
مدحونا جمهورية الصومالية المدن موسى بيح عبدي وانو يسلمي واو هذا الله أنا أقول وحن صقر أنا إيش سولة قبيلي طبعا رجل سولة قبيلي واجري ارجعوا للسوق كلمية إجابة طبعا إيمان لكن أنا إيش سولة قبيلي وحن قرواق صدق حرض إذا يحسب أو حيدا ما ينالو تريد بانكر واقصد وحن قرواق صدق هذا ساك حرق الصبتقو إن منكر صندونو هب المجيء إن أنت أنا مجيء بس حاجة كلمات المعوض المسصوب وعلى حرض كلمية كقلون ما يقود شوكتنا وقف بان وقانا وحن لا يا هاي جيل حرض كلمية كتشرنا هالشام مجيء أوران ماي ورميان رنتي هاي وحن لا يا هاي مدحونا جمهورية الصوماليلاند أنا قلت هسان كرواقصد إسنو كرواقصدي وأضي قرن حسب قنا وأضي فلك هقول جعل إسقى ما أنت يقلب جعل إنه رجيسي ورصده إنه يسكنه إنه هدي بدنا يسكينه ومسؤولية ذي حسار سواء سبحان الله هذا يا بن وبقادين يا كما أرق عيلقب يعرو لبضع أنا ونقبضنا أنا قابل نقبضنا السجون وابو يقرأوا بدنا مركانو شيء سنيني وعن هوستان كيجوهان ورياله ورمش ده مدحني ماذا دوشنا والله برتاه برجوة اللورنش اللي مدحوين وانا الدول يريها وانا الدقيق يريها ورنكو انتي ورك الدول بدل هذا ما لي شيء يا ورنكو انتي ورك الدول ثانا ويروح يقول وراني كوحبي ما دورني كرسي جنات كسعتي نكو ما أنت أنا هذا دوريس مدن بيقولي أنا كوحبي دوريس من مدني يا ورابها جبوبي بتكيس دقيقة أنا هاي نك ترالها أباهني وأديك أتبان قبضين إياه رجي كله حسب جوا وينان أو الريو إن هذاكي محمد كاهن أحمد نوان سبير حارن وارنما يوم ما أنتنا أنا أقول نعيل قبوا عريس الميه كرمي ندي مع عريسنا واحد شراء لبنانو ولا له غير كي يجاه قاسم قضح يلولين شري أحمد قضح ولا لا يهاي قاسم تأثير بوبع كويس قاس أحمدنا عاقل بوها عاقل نفريد بوها وسوق عليه دبشانا هو قيله دبنا مر بداسكا وهي ما ضد دينك الوحما هي قاسم بيل كرير كوكا قابل سي وحكو صدري قومها رير كان مر بوحلا هبل باحر أنا قوم كصوبه هذا لو حكو صدري دقات كيس يا كيسي دبنا قاسو حقينا وقاضي كريم داسك وحصوحلا ويروح الورول أحمدو داس كان أنت ما قاضي كرو مصاريف تقويس كاغو من كات كان إياه أحمد باي الوريا هو منك مركو دار كسيدو فكريو هل كودك عان نقدر وين بويلي وكان كسو صعده ويلي ورقاسنا وإنتاد حسابنا يسو إنتاد أدوغو وحسيسي أما وحي ترتي أنا عن حسابنا يو إنتان قضي ولقين هشيمين وعن لا هاي مدحوينها هو يسوع عبان يسوع بيرحالنا ورقة مدحوينها كل حيرانا حلالك هايو وعن لا انت حسابنا إنسان انت حمسمي أنا أقول عن حسابنا يو انت عن حول إيا هلقن أدق اللي يدسبها الدولة دانا الحانيت كيدا هايستان ايه حروب كيدينا هايستان وديه الشيل منه يسوسو هلوبي منه وعن لا هاي واروح عن لا واروحي دعيان حالي دليك النقلنو حسوستا اسمها بالي حفيلتنكي حنفتي حرقفتي وحاسودنا الحريد اللي كان قلنا صاحبه وصدح صاحب كجوجا إياك تشيلك إياك جوجا تشيلك وحقوق قيمها بدنك تشيلك أنا كراعة جوجا كل تشوجا واروح لا هاي خير كوميو وأنا صاحب كني تشيلك أتش عليدين إذن كان قارا
warnin hadduu seexdo soo tooso waysagii waxaanay maxamuudkii shalay idiin fadhiyey biyo culusta ee darka ceelka wadaanta dalluunta dheer ka darayay baana haddaan hal maalin kulmiye gacan bidixeeyey war miyaanan lahayn maalmo badan dharaaro badan oo aan kulmiye ka ilaaliyey dhegxumo iyo dhicis iyo dhimasho siyaasadeed waxaan leeyahay kaga baxayaa halku dhig baa wuxuu yahay afka qalaada lib sheegashayga ma aha waase kaftan halku dhiggaasi wuxuu yahay the hand that rises you when you stumble is better than a thousand hands that shakes you when you arrive carabigana way ku jirtaa alyadu allati tunahiduka cinda tacahurika khayrun min alfin yadin tusaafixuka cinda alwusuul gacanta ku hinjisa adigoo turunturoonaya ama tabaalaysani waxay ka fiican tahay kun gamcood oo ku gacan qaada maraad guulaysatay taa intaasaan ka leeyahay waxaan leeyahay maxaynu u baahannahay mudane madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen mudanayaal iyo marwooy kulmiye wuxuu u baahan yahay laba muddo xileed buu guulaystay maantana tartanno badan oo adag baa ina sugaya ururadii doorashadii madaxtooyada iyaynaan ismacaashiin siyaasadda way ka reebantay ismacaashiintu siyaasadda dhinacaagaa raggaa ishaysaan laga eegaa haddii quruur ina galo iyo qab oo aynu nianno wallaahi aynu isla baxno waynu jabaynaa waa inaynu si wacan isu qiimaynaa maxaa inoo wanaagsan maxaa inaga xun maxaynu fursadahaynaa maxaa caqabada inala derisay waxaan leeyahay mudane madaxweyne taariikhdaadu maanta waa xisbigan iyo qarankan waxaad kaga tagto mar waxaad tahay hoggaamiyey qaranka marna waxaad tahay hoggaamiyey xisbiga labadaa xil baad isku haysaa labadaba inaad ka shaqaysaan lagaa doonaya midba gaarkiisa uga shaqayso haddii aanu waddani iyo ucid haddaanu kulmiye nahay isla caddacaddaysano caddacadaysiga annagaa ku filan adigu kuma jirti annagaa ku filan dee nama soo dhaafi karaan nama soo dhaafi karaan waxa weeye adigu odayayntaad leedahay weliba marxaladdan adag waxaan leeyahay saaxiibkay muuse guushaan la jecelahay ka dhig maanta mid dhaanta shalaydii aynu soo dhaafnay waxaan leeyahay madaxweyne muuse dhimo adiga oo leh dheg fiican iyo aragti ifka dhaafsiisan oo aakhira ah waxaan leeyahay dhis xisbiga madaxweyne xisbigu ma dhiman laakiin madaxweyne ka bi'i dhutiska iyo dhaawaca kulmiye wuxuu u baahan yahay dhoobaqaad iyo dhiig cusub buu madaxweyne u baahan yahay dhoobaqaad iyo dhiig cusub buu u baahan yahay waxaa lagaa doonaya inaad ku dhiirato waxaa lagaa doonayaa xisbigan in lagaa dhaxlo madaxweyne oo sidii xeerkii axmed siilaanyo dhigay aad ka tagto oo madaxweyne kulmiye mustaqbalka ku bedelo oo xumo uu kaa dambeeyo xisbigani oo taariikhdaada ay gasho oo lagu duceeyo inaan hoos lagu eegin baa la doonayaa waxaa la doonayaa adigoo keligaaya inaanad madaarka sida daahir yaale ka soo degin ayaa la doonayaa aad baad u mahadsan tahay reer kulmiye waan u wada ducaynayaa dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xafladdu xagga dambe waxaynu ugu dhiganaynay
de odayaashii ugu waaweynaa xisbiga weli hadalkooga hadhsan yahay